qisadana waxay ka bilaabmaysaa waxaa jiray inankii inantaasi waxay isku barteen si walaaltinimo leh markay isbarteen muddo ay xidhiidhkoodii walaaltinimo socday kadibna inankaasi inantaasi waxay isku yaqaaneen wanaag ixtiraam kala dambeyn iyo laba qof oo maxaanadahay isfahmay bay ahaayeen awalkii hore kadib waxa dhacday inankii markay muddo sidaas oo ahaayeen in inantii ay inankii dareen u qaaday markii inankii dareen u qaaday sida caadigaana loogama baran hablaha inay dareenka ay qabaan ay ragga u qaadaan inay soo bandhigaan dareenka jacaylka inay soo bandhigaan loogama baran muddo ayaana inantii dareenkeedii inankii u bandhigan laakiin sidii caadiga walaaltinimada ahayd ula hadlaysay hase ahaatee maadaama aanu dareenka jacaylka ahayn mid la caburin karaayo inantii markii dambe way qarin kari weyday waxaana go-aan ku gaadhay in inankii u gudbiso dareenkay u haysay dabcan kadib waxaa dhacday inankii inay u sheegtay u bandhigatay inankiina si aan inaba caadahayn inantii u soo dhaweeyey iskabadaabay xitaa uu ku farxay inuu noqday qof la jeclaaday weliba inan noocaasoo kale dib wanaagsan inantiina wanaagsan bahayd inuu jeclaatay farxad buu ka muujiyey inantiina dareenkaa inankii kaga soo falceliyey waxay u bandhigatay iyadana farxad sidoo kale halkaasna farxad baa ka dhalatay waa farxada isbiirsay kadib waxaa dhacday in inantii iyo inankii ay muddo sidii ahaayeenoo dee laba qof oo awalba walaaltinimada isku fahmayni markay jacayl noqotayna aad iyo aad isula jaan qaaday aad iyo aad isu fahmay kadib waxa dhacday waxa isku bartay jacaylkooda qaybo faamiliga kamid ah iyo sidoo kale inama kamid ah asxaabta inanka oo isku yaqaaneen labada qof inay is jecel yihiin kadib waxa dhacday muddo sidii la ahaa hadaba nolosha caqabad lagama waayay nimcooyinkuna ma dhamaystirmaane inanka inantaasi walow ay is jeclaayeen haddana waxaa jirtay caqabad mar walba soo hor istaagi jirtay oo ahayd in inanka inantaasi mar walba iskhilaafaan khilaafkooda badnaa horena waxaa loo yidhaahday markaad aduu qofka jeceshahay waad samir badan tahay marka lagu jecel yahayna waad kibir badan tahay markay isjeceshihiina waad dagaal badantii saddexdaa marxaladood kadib iyagu marxaladda dagaal badnaantii ku jireen kadib marka ay khilaaf joogta ah mar walba dhashay labadii qof markasta ismaageen ayaa waxa dhacday laakiin waxaa jiray in markastoo ay ismaagaan ka khaldani uu khaladkii kasoo noqon jiray ka kala raali gelin jiray ka kalena raaligelintii qaadan jiray kadibna halkaa kasii socon jiray ayaa raaligelin bixin jiray ka kale uu ka qaadan jiray muddo sidii ahayd markii muddo sidii ahayd maalmaha ka mid ah haddaba waxa dhacday inantii inankiina ku khaldantay sidii caadada u ahayd markay ku khaldantay in inankii inantii ay muddo yaro kala cadhaysnaayo kala maqnaayeen markii dambe inantii way soo qabatay khaladkeedii way karowsatay waxaana damacday inankii inay khaladkii ka raali geliso haddaba inankii markay u sheegtay khaladkeedii iyo siday u khaldantay iyo siday raaligelinta diyaarulatay iyo siday u tahay inay wax kastoo dhacay ay ilowsiiso kadib inankii wuu ku gacan saydha arrintiina wuu ka diiday waxaanu u sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu raaligelintaa qaato welibana inantahay inankaa wax sii dhex maraya walaa walaaltinimo walaa xidhiidh halkaas ku burburaya inantii way u qaadan weyda arrintii kadib waxaa dhacday inantii inay arrintii dee aan fariir ku noqotay inay xaalad adag gashay walaalka damay inantii inankii baloog baabu saarame maadaama dee imika balaha bulshada laga wada xidhiidho kadib inantii markuu inankii baloog saaray waxaa dhacday inantii inay xaalad adag gashay kadib inay la hadashay inankii inama ka mida dee inamadii ay asxaabta ahaa inankii isku ogaa inamadiina waxba way ka qaban kari waayeen arrintii inankii maadaama ku adkaystay go-aankiisa hore uu ku adkaystay kadib waxaa dhacday in maxaan radayay muddo laga soo wareegay muddo markii ka soo wareegtay inankii isagu inantiina soo xidhiidhiyey baloogti ka qaaday soo xidhiidhiyey kadib si wanaagsan buu la hadlay wuxuu ku yidhahday walaalo diyaaru mihii khilaaf joogtaa waxaan doonayaa nolosheedana horumar isgaarsiiyo ahdaaf baan leeyahay mar rabo marbu dareemo iyo qof iragaadiyo hadba murugo igu reeba saa darteed waxaan doonayaa in maxaan radayay xidhiidhkeennii jacayl oo halkaa kusoo afmeermo hase ahaatee aan maxaan radayay ballan dhigano oo aan mustaqbalka isanano xilligay ugu habboon tahay calaashan xilliga dee aan ku hanan karayo kadib waxa dhacday sidii baa dhacday inankii madkadiisa may go-aankiisi bay la qaadatay waxaana laysla afkartay ballana lagu dhigtay in marka ay mustaqbalka xilliga ugu habboon ay noqoto labadaa qof inay sanan karayaan inay isku soo laabtaan kadib waxa dhacday inankii sidii baa laysku ogaaday inankii laakiin inantii meelahay ka wada xidhiiri jireen oo dhan wuu iska saara muddaa ka soo wareegtay muddo sannadaa ka soo wareegtay muddo sannada markii ka soo wareegtay ayay inantii inankii xidhiidhisay iyadu markii la isxaal waraystay kadib ayuu inantii ka waraysatay inankii ballamihii ay dhigteen inay sidii yihiin inay wax iska bedeleen inankii wuxuu u sheegay inay ballamihii wax iska bedeleen
inantii way la yaabtay waxay u sheegtay dee halka islaamku ka taagan yahay ballanta iyo inay axdi wada dhigteen iyo inay wax isku ogayn maxaa dhacay bitaaba wuxuu yidhaahday walaalo diyaaru mihii inaan maxaan dhadaayay ku hanjabiyo inaan waqtigaaga kaa qaato in maxaan dhadaayay inan baa tahay cimrigiina iyo wixiina oo dhan iyo dee hawlihiina maadaama iska kooban yihiinba amaba ma raba dee qof bilaadan in aniga ii xidhxidhnaado markaa wax kastaaba dhici karaan aniga qorshahaygu jirtid adiguna qorshahaygu darsan inantii arrintaasna waxay ku kala noqotay af kala qaad kadib waxa dhacday inantii walaalnad kadisa maya saasay walaal tahay markaa inantii iyo inankii halkaasay ku kala dhammaadeen laakiin markii hore inantu xaaladii ku jirtay xaaladii hadda gashay way kala duwantay maxaa yeelay markii hore inanku la soo xidhay inanta wuxuu u sheegay mustaqbalka insha Allah inay sanan doonaan markii rajay qabtay laakiin imika rajadina way burburtay quus bay inantii istaagtay markii quus istaagtay inantii xaalad aad iyo aad u adag oo aan hadda ka warami karayn qof arkay uu ka warami karo ay gashay kadib waxa dhacday inantii in ay iyadana jirtay dhibaato kale iyaduna oo taa ka sii daran dhibaatadaasoo ah inantaasi qof kasta iyadoo horta cidna calban mayso laakiin qof kasta oo iyada soo calmada in aanay ooda ka rogaynin maya iyada waxay doonaysaa qofkii oo kala wixii soo maray darteed ooda ugama rogi waayeyso waxay ooda uga rogi waayeysaa maadaama qofkani qofkii oo kale ahayn waxay ka dhex baadhaysaa hadalkiisoo kale inuu yeesho kaftankiisoo kale inuu yeesho muuqaalkiisoo kale inuu yeesho maadaama intaana dadkii day yeelanayno qofkii nooca uu ahaa cid waafaqaysa aanay jirin waxay noqotay inantii day inay noqoto qof keliya markastana murugaysan kadibna arrintaas ayaan maasidan ka sameeyey maasadana waxaa lagula hadlayaa wiilkii dhanna waxaa looga sheegaya xaaladii inanta ku jirto dhanna dee way kula doodaysaa oo arrimuhu seeyihiin inanta waxay ku bilowday calaf iyo wixii maqan caadilkan u daayey raggu waxaa cajiibka caalimka iyo shiikha leh cilmiga iyo diinta leh cuudka iyo hantida badan cindigayga kuma qaban caashiqana warkiida awna maanka kuu dhigay cidna uma dhowaato ciidanaad u dirataa caydhinaayo ruuxii cidhifkeeda gaadhow caaridoo dhammaantood caajisoo ka soo dide curub soo baxaysiyo caws lagu ildoogiyo cagaar ma laha laabtuna idii ay u bogayso awa ay ka helayso cir kastoo ku hooriyo calcalyada xareeduna caleemaha ma saarto waagaad carrowdaa cinabkiiyo rumaankii cidhibgaay tufaaxi maansadii curintana inaan kugu cumaamado carabkani ma daayo caashaqa aan kuu qabo cabir iyo tan ma laho cadadkii ma helayo shiksi kula calaamadi ciidana ma marayo cidaan kula masaalaa caalamkaba ma joogto cayladaada inaan helo waa calaacalta male calmashaday i doortaan tiyoo ay cawdaan oo calaacal tiriyaan codsigoodii diidee maxaa cadarka kaa dhigay caraftiiyo udkoon kale cid kastana canaanto ciladiisi sheego cadhoodoo ka boodey maxaad kaga cudoon tahay cindigaa ku raaco camalkaaga deeqe adigoo canaadiyey naftu kaama caagto adigoo cidlada baday cudurdaar ku siiye maxaad ugu cajabiseen u ictiraafi keliga anigoo cawaysida jooga la buuxiyo dadku meelu ceeg yahay bal maxaan codkaaga cilmiga u tabaya xasuusahan cartamaya maskaxdii cidhiishee maxaa cidhifka ii suray eenu soo celceliya marka hadda waxay sheegaysaa bal sababtan waxa ka dhigay waa cibaaro yaab leh caynkaa aan kuu ahay waxa iigu cadibayee kaa dhigay cadceediyo cusubkii iyo baadkii cududayda kugu xidhay niyad aan cidaado xumihii ka culaybaa naftu kugu casuumto aad ku caanamaasho curad yahow aduunbaan caalamkaaba kaa helay cid kale inaa nolol ku caleema saartoon caloolyow la doontana caqligaana siinay cimrigayna idilkii ogaan maayo ruux kale haddoon caynkana ha iyo haddii aan ciroobana adaa calanka ii sida welimay quusan culayskaa jacaylkana samir baan cogsadayoo dhibta aan la ciiriyo ishadaan la ooyana marka aan caweynee ciidnaan ilaawiye adna haygu sii curin waa caata dumarkuye